ruushka magaalada Kazan xarunta taariikhiga ah bidix dhisme Kasana midigna dhisme Huruda. Dhismuhu wuxuu u qaybsan yahay laba qaybood oo aan sinayn. Qaybta sare waxay ka weyn tahay qaybta hoose, waxayna leedahay laba dabaq. Qaybta hoose waxay leedahay hal dabaq oo kaliya. Si aad u muuqato, xadka toosan wuxuu u muuqdaa inuu u qaybinayo dhismaha ku dhawaad kala siman. Booqashada dhismaha ee kor, booqashada dhismaha ee hoose. Laakiin qaybta hoose si cad ayaa loogu baahan yahay dherer. Qaybta hoose ee dhismaha waxay ku taal halkan, hoosta shabkadan. Tani maaha marin hoos ah manaha tareenka dhulka hoostiisa. Tani waa gelitaanka qaybta dhulka hoostiisa ee la qoday. Waxaan hoos u dhacnay oo gudaha u galnay. Waxaan ka hooseynaa heerka jidka iyo waddada. Waxaan ka eegaynaa hoose dhexda shabaka. Waxaan soo dawaynayaa oo aan hagaajinayaa fiiro. Ma aragtaa bidixda guri Kasana. Midigta guri Huruda oo aan lahayn dhererka qaybta hoose. Halkan waa xadka u dhaxeeya guryaha. Furitaanka daaqadda. Waxaa lagu hiday doobo. Halkan waxaa ku higa furitaanka daaqadda. Waxaa lagu buuhiyey jiid. Iyo furitaanka daaqadda kale, sidoo kale waxaa lagu hiday doobo. Darbigu wuxuu ku daboolan yahay dhagax. Waxaa muuqda korontooyinka soo baxaya. Waa la fahmay halka ay ka maqnayd dhererka ka maqan qaybta hoose ee dhismaha. Qaybtan dhismaha qadiimiga ah ayaa hoos u daatay, ka hooseeya heerka waddada.